kooxaha Arsenal iyo Aston Villa oo ka socday horyaalka Premier League ayaa Champions League iska xaadiray wareegga 8-damaadka ee koobkan. Kooxda Arsenal ayaa ku badisay 9 gool. Kooxda Borussia Dortmund ayaa iyaduna iska xaadiray wareeggan iyada oo samaysay soo laabasho wanaagsan. Kulanka xiisaha leh waxa u dhaxeeyay kooxaha reer Spain ee kooxda Real Madrid iyo kooxda Atletico Madrid. Kulankan oo ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee wareeggan la ciyaarayay ayaa waxa sida caadada ahayd soo gudubtay kooxda Real Madrid. Kooxda Real Madrid si kastoo ay xaaladdu ugu xun tahay, haddana soo gaadhista wareeggani waa shaqadeeda xoog iyo xirfad kay noqotoba. Laakiin waxa xalay xiisaha lahaa ee garoonka ka dhacay wuxuu ahaa goolkii rikoodhaha ee laga diiday kooxda Atletico Madrid iyo ciyaaryahan Alvarez. Waana sababta kuwa ka soo horjeeda kooxda Real Madrid ay ku doodaan in kooxdan Real Madrid ay ku socoto musuqmaasuq iyo inay siidho walayaasha ama albiitarayaasha ay siiso lacag. Si kastaba ha ahaatee, wareegga 8-damaadka waxay is arki doonaan kooxda Arsenal oo iyaduna rajada kaliya ay leedahay ay tahay u halgamidda koobka Champions League ee sanadkan. Labada kooxood waa kala wanaagsan yihiin, waxayna ku kala fiican yihiin. Dhanka weerarka waxa ku fiican kooxda Real Madrid, halka kooxda Arsenalna ay ku fiican tahay dhanka difaaca. Kulankaasina wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan Champions League ee la ciyaari doono. Waana arki doonaa natiijada ka soo baxda kulanka xiisaha leh.